عفدي دينتي عرنكان كبرتو الله وبركاته magacaygu waxa weeye waa maxamed cabdullaahi maxamed oo ku magacdeed garaasfool hadda waxa weeye barasho wanaagsan marka ugu horeysa waxaan ku furanaynaa kelmad diiniya oo inoo akhriyo imaamka masaajidkeena cabdiqaadir faarax واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم من بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم أبتوه وكودي بدونا وأركا إن قاعد هذا يصير صعطر قاعد هذا عبارة غير جوج خير الله كسيو وحنفريا هرتا محفل كندت كسوق القابيي كسو الشقيي سكسو تبردي انتاس أو ضد قروح بدل ماشي سوف يصير أدي ومهسين والكوبان ومرك الله بعد قضب الله لقاه الله يقعد المرك اللي يرد المري آيدي هد عن أخريه أي كتشران قرآنكو لما هل دين نجوه الرجال أما ضعيفة إنك كهر لا صوت دري لكن القرآن is applicable to every time and every era. حل كستية قاب كستية قاب كستا. ما بعد. أيضا مركب حكاية لين لبنين أول على ما خشي. سجلين أول على سيدنا. سيدنا سكوبات هاي سيدنا. النبي هقولي هاي سيدا. ما خشي سمع شكلها. يعني لبنين أول على والماء آذنه. أيها إلهي سبحانه وتعالى وحب الجبري ربي بري بالسميني ربي بري بالسميني هذا من دوا الله قبلي من إلهي سبحانه وتعالى إلا يسقى أمرك هي أرهم والبلاه ولا جديد شيء كذا ولوتي سمع مركب ميت كان محاكور لعيشرس أنتوا ولالكي دلين أيوة ولالكي إسكسي أبينا يا مركز سوريا والولارو بريجدها بري دلين حقيقة قصة سنة وحيو كيني سامرك صومالي وحكت تاجن ويلكي يا أبتي ويلكي يا أديركي ويلكي يا ولالكي يقول هذا معناها سوق الشضي مظلة دينات وإن الله ينا ولاله هنا يعني وحكت عيا ووح لبض عن الناس كسر الدين ووح عن ساء السوينين يعني واحد القبيلات من هذا كل ما تمره مركب قدام بيسوي حيتاجن تاجن وبصل marka waxay taagan tahay laba qof isdilay wuxuu leeyahay kala bahbaana ay wala lama tiidin kala bahbaana ya waa ridiculous
إلهي مركا ددكي إنغو هوريي سو ugu quuskooyo kutubtoodii reer bani Israa'iil anbiyada oo dhan reer bani Israa'iil baa laga soo diri jiray reer bani Israa'iil hadda maxay noo haystaan because anbiyada iyaga laga soo diri jiray kadibna hal baa laga duway hal kaliya only one ee laga duway nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam dagaalkay marka barta ka soo bilaabeen ilaa hadda way wadaan garanaysa marka sheekada aynu maanta meesha u fadhnaa waxa weeyaan ninku dilay doctor walaalka inuu yahay oo uu guracan yahay oo aqliga uu wata uu guracan yahay waxa uu diin ka dhiganayaa diintii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay ka baysan tahay guracan tahay aynu leeyahay walaalo iga daa Soomaaliye hada hadalka khaldan fahmay halay sheega la qabto hadii kalena runtii waa sida dagaalada ahliga ee meel walba ka aloosan iyo kan inoogu daran ee qofkii kula dhashay xitaa uu ku qarxinay isagoo adoo masaajid ka soo baxay salaadii subax oo ku qarxinay sheekhuuna deynin shariifuuna deynin suldaanuna deynin wadaaduna deynin gabadhuna deynin waxbuna deynin waa xaliqa yani waa wax macnaha xididadeenna jaraya ilaahay marka wuxuu leeyahay reer bani Israa'iil baa waxaan kutubtoodii u qoray qofkii adduunyada hal qof dilaa wuxuu ka dhigan yahay inuu adduunyada dhan dilay qofkii qof badbaadiyana wuxuu ka dhigan yahay adduunyada dhan in badbaadiyay walaalow iga daadaas ayaan anaga wadnaa waxaan taageersanahay xaqa iyo wanaaga iyo cadaaladda iyo walaaltinimada iyo wadajirka iyo mataqaanaa isu damqashada taan meesha loo fadhinaa kulliga waa intaa sooma marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin jazaakumullahu khayran anu intaas baan oran lahaa waxaan kaliya ku darayaa on bishii Shacbaan ee barakaysnay ayaynu galay hadana waxaan maanayaa erayadii waad maqlayseen af Ingiriisiga ahaa just haduuna hal qof oo yara fahmin uu jiro uma raba inaan ugu soo celiyo saddex qodob kaliya ma ka oranayaa Shacbaan nabiga waxa ka sugan sallallahu alayhi wasallam bishan barakaysan ee Shacbaan inuu ilaahay acmaasha kor u qaado haddaynu inteena oo dhan oo wada qurux badan hadda aynu meeshan wada fadhino aynu sabcinayno laakiin hoosta aynu maaragtay xafiiltan iyo wax isaga hayno hadda ilaahay ma taqaanaa acmaasheena dib u soo celinaya oo ma aqbalayo soo ma xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam marka inteena horta cafi iyo masaamax wax kasta oo nidigu haystay ama gabadh igu haystay anu waxa la iga cafiyo walaalayaal ala ugu horeey ha idinkuna kulligan iscafino waa halkay ka bilaabanayso qofka hadaad waxaad u haysay aad u tuurto kadib wax walba inoo wanaagsananaya insha Allah ta'ala marka bishan waa nabiga sallallahu alayhi wasallam yani manhajkiisi iyo diintiisa waa saxay waa qodobka labaad ee soomka inaan badino iyo sadaqada iyo dadkii xiriirintooda oo aan xiriirina dadkeeni waa qodobka labaad nabiga waxa ka sugan sallallahu alayhi wasallam xadiiska Aisha inay Aisha leedahay 27 maalmood buu soomay xadiis kalena ay leedahay 20 cisho soomay bal Salama waxay leedahay bisha dhan uu soomay marka taana aan ku darno bishan sida sugan oo xadiiska nabiga ku sugan sallallahu alayhi wasallam waxa la waa bisha leeyahay shahrul maghfira bisha ilaahay uu dambiyada dhaafo qofka alla soo noqdo ee maaragtay maskaxdiisa soo celiya ee garaadkiisa keena ee aqligiisa soo celiya ee alla isu soo bixiya ilaahay subhanahu wa ta'ala uu aqbalaya marka dhamaanteen horta aan saamaxno inaguna khayrka inaan ka wada shaqeyno qof waliba halkan ha ka diyaar garow waxaan idinka mahadcelinaynaa imaanshaha timaadeen waqtiga fiican oo la qabtay inkastay afartii xagga salaadaha soo dhex galay intaas suburkiina iyo dulqaadkiina oo ku mahadsantihiin haddee wax aada cusub oo aan idinku kordhinayn waxa weeye uun war sidee baynu u taakulayn lahayn dadka dhibaatada haysato oo buuraha ku jira oo dagaalka ku jira oo aan innaba haba yaraatee magaceena iyo magaca islaamnimada labada ku hagagabaya sida awgeed aanu warka badin maayo dad badan baa meesha ku qoran waxaan kusoo biishubaya hadalkayga oo dhan soomaalidu ha israacdo midna allah ka dhigo meelaynu kala soconayno ma jirno wixii ka jira Puntland oo dhibaato ah
geyga kaleetaba soomaaliyeed isagana waa ka jiraan marka waxa weeye in laysu gurmado oo dadku ka wada shaqeeyo nabadgelyada dariiqyada ay maraan la awdo oo looga gudbo koolans iyo galgala iyo waa la soo yahay marka hadalkii waxaan kusoo gabagabeynayaa intiina hadda kasoo qayb gashanay wadaadkuna waa yiri waa shabcaan baa lagu jiraa intaanu iimaanka hadalkiisii oo ahaa alla iscafiyo waa midda labaadna waxaa la bixinayo waa sadaqa taas qofka abdigiisa iyo diintiisa iyo wanaagiisa ka hor imanaya ama la dagaalamaya hadduu mataqaan u tawaabashaysto waa ajar siyaada marka kulligiin oo dhan waa ku mahadsantihiin khaasatan intii soo qaban qaabisay fadhiga kan caawa la isugu yimid waa ku mahadsanyihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً رجع دمر بوايد السلامي كنت شرفت على هالكرم ومتمد وحن مرينا يا وحن عاو هالكرم يسوون ميد محاول تاجر ده إن تاجر نور دولة بنتلان لدجال كحسنة دجال كل جفتو لا qof walba iyo maaragtay karo inuu maaragtay taageero ka geysto haddii af noqoto iyo haddii adin noqoto iyo haddii dhaqaalo noqoto intaba waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu faraxsanahay ugu mahadcelinayaa dhammaan dadkiina sharafta leh oo caawa halkaan nagu soo maaragtay noogu yimid si ay maaragtay arrinta u falaaqeeyaan anu wax badan oran mahayo welcome baa idin leeyahay aad baa idin soo dhaweynayaa wixii xadiisaha waa naloo sheegay wixii waana ahaana waxaan malaynayaa panelkan sharafta baa inoo kaamili doona aniguna waxaan idin leeyahay soo dhawaada wax kaliya oo la rabo waxaa weeye in la isgarab istaago dalkeeni iyo dadkeeni gaar ahaan iyo guud ahaanba soomaaliya waa inoo baahan tahay shisheeya ay nagu soo duulay dalkeeni karaamadiisa iyo sharaftiisa saan u soo celin lahayn inaan wadajir inagu ah inaan u horseedna baan rajaynaynaa insha allahu tacaala وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحكست أو دبله الكود وبنانيه مركا وحنا أول سكون من إلى نتاجرنا فجأة إلكا ونفتو الأمورية نفتو يبيكو الأمور هي دفاع الجود محمد بلاد الصومالية يدفع الجود المسلمين ماذا يدفع جهود ابن آدم سببته قبل كاسدي دبعت كنت مع الصومالي ورب كنت الصومالي وربنا دي دبعت كنت مع أمته ورب كل معانيسا مركا ألقى محمد وصو قيب قال عاوة وأرين واجب إن نتاجرنا هل كان كله بجرو وبطلنا أكون شفتو وهذا تلفزيون كيكتب ولا تكسريين يا حالة تكسريين بعد أقول رجيسة وأيو أضيفان هذا ودي مثلا سكفر يا مربع شقة يدور وبال كائنات مركا سلاسة كروجان سوى حق برشة هذا الكيان بدينا أنت سؤال بشرة ومدينين أنا أقول يعني واجب إننا نمارنه سلاسلات يعني دين قصر كوهيل واقعنا يعني رباهيني وحي كانوا أنه قبل كرنه وطوالت أنا أنه قبل وأنا ما سنتين ولمدنا واقع هذا الشيء نسعى فيه بشان إلى صوم خير كبا وأنه محمد إلى دوات كسرنا العبادة خير كبا إلهي ما يقبلوا وأن إلهي يكرجيننا اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أزواجنا وذنوب إخواننا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
ومن تمسك بسنتي بدعوتي إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو قطعنا. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا حتى لو حانا أودي ويعاود بسيارة شيوخ بعضهم بسان يشيوخ بعضهم لما بسان يموت حتى لو حنودي ويا صاحب البون بعضهم حنودي ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. markuu horeyso waxaa mahadle dadkii waxaan soo qabaqaadiyey yaray weysay u leeyihiin. marka labaad aniga horta hore inaan hadda uma talagelin meeshaan waa adka gurigeyga waay waxaa fasaxan wey laakiin maadaama laga codsaday arrintaan arrin anaga dhab naga weyn tahay ee tahay waa waajib mar qof kastoo Soomaaliya oo dhiig iyo dhacaan ku leh Soomaaliya inuu ka qayb galo. waxaa la yidhi taageeraan siimo aniga waxaan qabaa hada wargeliya dalkii oo ha loo sheego dhibaatada dadka ay ku hayaan dadka nasiib waxaa u leedihiin kulligiin Boston inaad joogtaan inaad taqaanaan madaxda magaalada waddankan Boston waa inaad wargelisaan waa inaad petition qortaan waa inaad maaragtay dadkii Maraykanka ahaa aad ogeysiisaan dhibaatada gobolka iyo lagu hayo ma aha waa Soomaaliya dhan. shalay dadkan maanta soo kacay cudurey ahaayeen ayagoo yaray meesha ka bilaabay maanta yar waxay joogaan ay ku qaangaaraan. Puntland waa dagaalan karta keliya laakiin Soomaaliya la-aanteed ma dagaalan karto. waxay u baahan tahay cod ayada ka weyn oo adduunkan sii wargelin kara. marka waxaa layihi falkan iyo fool badano marka waxaan waa inaad qof kastoo Soomaaliya oo adduunka ku nool inaad u cidaarsataan lacagaas ka aruursaan oo boqol iyo aragtigina wax tarayso laakiin codkiina oo maalinkaas aad ka hadlaysaan dhibaatada Facebook soo gelinaysaan WhatsApp soo gelinaysaan dadka tusaysaan dhibaatada lagu hayo then yaa yaqaano riibi oo malaya galjirma inaa ahaan jirin kulligiin erayga riibi la dhaho riibo waxa waaye bahal yaro taxsiga camal ah aan laga daaki karin marka waxaan leeyahay nimankiina wadamadan jooga Minnesota waa aragtay powerful ay yihiin waxaan ha ku ekeenina cidda keliya because arrintan Soomaaliya dhan bay khusaysaa meel kasta qof kasta uu joogo. marka hasin lisaabina runta u jeedaan das haddaa dadkan oo hadda nasiib waxaa ku leeyihin maanta daana tarab inuu madax yahay anima u boodin basura mala jecel laakiin kala ma jecla wuxuu qarxiyo magarad kuwii kale human rights iyo dalaa'i kale sheegi jireen magarad laakiin this guy inaad dadkii u dirsataan oo la hadashaan madaxda meeshaan si u garbaysi because haddaa fiirsaan Jabuuti wada joogaan maxaa u jiraan Puntland Jabuuti maxay isku jiraan marka wargeliya anaan ilaaba
taageer keliya ha suubin leh wargeliska badiya marka intaasaan kusoo gabagabeynaya. السلام عليكم. قلب وناكسن كل يرى بوسطن. aad baan ugu faraxsanahay inkastoo dadku yar yahay in wax anigu qof ahaan aad aan u jecelahay. yani mara waxaan isirahdaa ama qaarkood culamo yihiin oo ku naar tagtaa shabaabka iyo ISIS-ka iyo nacayb aan u qabo. anu dagaalkoodaan soo galay waa ku dhiman gaaray dhowr goor ilaa caawe oo dhan baa wadi karaa inta goor aan qarax joogay say dadka ugu farxaan markay dilaan. muusig bay ku daartaan, marmar quraan bay daartaan, nashiidooyin bay daartaan iyagoo dadkii baabiinahaya. caawa seexan maysaan adaa waxaan ogahay nimankaas idinkaga sheego. so dagaalkaan waa dagaalkayga, dagaalaan ku faraxsanahay. in dadkii Boston oo lagu xanan jiray, Boston waxaan ka wadaa dadka dibadda lagu xanan jiray inay caawiyaan, inay soo taagan yihiin oo aan kaamirada ka dhuumanahayna ay dirito dagaal aan la galayaan aad baan ugu faraxsanahay. horta hal mar waa congratulations waa ilaahay isku tacadiya dad badan iga rumaysto waxaa jira markii shabaab laga hadlayo ISIS iyo waxa aftaan ugu yeeray aniga waxaan ilaahadaa kamana baqoolada kungoor bay dili gaareen waa dabeer iyo labadiis dhagood. ISIS maxaa yidhahdaa alqaacida al-shabaab iyo kuwii kale maxaa book xaram kulli waa dabeer iyo labadiis dhagood. mana haysta inay islaam yihiin. anigu marbay waxay ugu haysteen hotel aniga dad badan ku dhintay. markaasaan 5 saacadood ka bacdi baanoo boor leh oo dad badan waa arkay YouTube-ka dirac ma qabine waxaan qabay ayfaysan sheeg nuurna markay xamar xumaato Puntland u calaamay anigu sabaa joogay weli anigoo runtii qaba tuute iyo baar xun xamar cali faysal uu og yahay. habeenada qaarkood waxaa la oran jiray caawa ma habeenkii lagu seexan jiray baa jiiniska wallaahi calayh. waxaan soo maray in inta baasaboor kale ay ku seexato jiinis baasaboor kale aa gadaal gashanaysid si haddii wax u dhacaan hadday kugu suroodo darshada uga boodid. inta badan xildhibaanada iyo wasiirada iyo waxay u dhawaadaan nambar 4 airportkii baa u dhow mogtaa. marka halkaas waxaa la saa wallaahi waa la is oran jiray caawa ma habeenkiiba. soo horta habeenkii ma ahayn anigu habeenka aan ku seexdo laakiin weligay tuutaa waa iskaga seexan jiray iyo t-shirt kamaa ilaahay qudradiis waa qabay laakiin telefonka socod maysa. markaan dibadda usoo baxay hadalkaanaan ku iri intaanaan rabaa anoo caraysan baa nin la oran jiray Afrika oo ahaa wariyo weyn oo shabaabka la dirira baa i bariyey 60 qof baan kusoo degnay waa diidanaya hadlaan waxaan hadlay Sheekh Baarid allahu naxariistee oo nugula jiray qarax oo in dhacaayo meesha fadhiya dadkuna way ka wadayaan interviews ilaahay wuxuu ka bariyay nimankaa dagaal baan kula jiraa ilaahu maanta tayda ka dhigay way dhalaayahay waxba uma jeedo dabaqa koowaad buu degan yahay ilaahay ma tusin. anigu waa ka roonay dabaqa saddexaad baan deganaa laakiin 5 saacadood baan haystay. markaan soo baxay aniga waxaan ku yiri idin sheega waxaan ku yiri nimankaas Soomaalinimana ma wadaagno diinna ma wadaagno. hadalkaas inta iga raacay aqligana ma geli karto. isla markii dad baa soo wacay xadiir maxaa u tirisaas diintooda lama farageliyo waa waxay ku qaraabtaan diintu. nafti way keeneen ayagoo ka dagaalamaya kalimadaan yiri Soomaalinimadan kama yiri waxaa idin sheegay marka waan ogahay in labada ka kaliya 3 dagaal baa Soomaaliya ku furan Soomaali oo dhan laba kamida oo aan very passionate about labada dagaal bay Puntland ku jirtaa. ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inay ku guuleysato. waa midda ISIS iyo midda Oromada laga xaaqayo dhulka oo Soomaaliya iyaduna aad muhiim ah. yaan la yaraysan labadaas dagaalka saddexaad waxa weeye kaas Ethiopia oo rabta anagoo dhan la waayo taas Soomaali oo dhan ku jirta. laakiin labada dagaal hadda Puntland ku jira labadoo waa muhiim. waxaan rabaa inaan idin sheego maan looga waxaan arkay wiil yar ah oo 9 jir ah aan 9 buu jiraa meelay taana ma aqaan baa waxaa la weydiiyey wuxuu ka tegay maayo dhulkaan anaa leh oo adigu yaataa oramaana hataa Soomaali baan mar wara ku dhashay oo see u leedahay abiya isiyay wiil 9 jir waa gol Soomaaliyeed u jooga. waxaan u diray intaan qof aqaan oo dhan hada wixii aan jeclaa waa shaqooyinkaan jeclahay wey in Soomaalidu dareemaan 9 jir oo dhulkooda sheeganayo abiya isiyay wiil Soomaali baan aniga ku mar oramaana ku leeyahay. dagaalkaas Oromada oo la raafayaan waa ka seexan waaye farxad
ma ku taageeraya Puntland hal la wado meel kastoo Soomaali joogtana kaas la wado kan ISIS-na goldan wax badan buu ogyahay shaqooyin badan oo noocyadaas ninka waxa jooga asna waxa cali faarax halkaas madaxa ka waxa ismaayeen cali faarax inuu xagga jooga yahay ISIS iyo al-shabaab wallahi العظيم Soomaali in la waayaya haddaan dagaalkeeda laga midoobin maalinba gobolka uu jiro gobolka kale yaraadaha oo gaalka ay haystaan Kismaayo haystaan Puntland ay haystaan والله العظيم إن Soomaaliya la waayay waxay aaminsan yihiin in Soomaaliya la wada leeyahay professor waxay aaminsan yihiin in ninka Afghanistan ka yimid ninka ka yimid South Africa inuu boosaaso kula leeyahay muslim baa goorba muslim ku xawada yeeshay diintaas laga dhaxaysa waxay aaminsan yihiin dhulkan dhul inuu yahay qof kastoo muslim ah soo markaas khatar bay lagu hayaan hal la dagaalamo waliba intaan waa yartaa waxaan oran lahaa hadda hal mar soo lama shigin shir kalena hala sameeyo kana ha noqdo wacyigelin dadkaan aadno yaan laga harin inta ISIS la cayrinayo waa salaam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم كلكم وحبنا ورما يدخل سؤال بدي يقول يا ولي لنا والشيء especially سندير شو سندير يري لما كان نقال كودو أنا قاعد بدي قاعد كيس وبيرسونال أنا قاعد صدق قربا لا يكفي staff هي وهو قاعد باور أصلا أفقوي قهروني جاي تياتر كمركي القحي وبرامج كعبدولها أرجع بقى هاي نيجا فكية سندير أنا ما يقبسنا لكن باش عن كم بحي غير كمان سوكري مركنا من كانوا ما هني من أجندة الصومالية دوتا تذكر فود شورتر كالصومالي وبدن لكن تذكر ترى يعقل عليه ودن أجاني بقى وأن قد يصومالي المصريين مسلمين وهي مثيلة ميغا وحل الله يكريو waxaan rabaa marka inaan wax yar ka iraahdo dibka Soomaaliya jooga macnaha ka jira wuxuu noogu ragaadsaday waxa weeye markay qolo dhibaato haysato ama gobol ama magaalo ama inta kale oo ku fiirsata waxaan rabaa in la wadaago kood ama hadal yar uu yiri nin Martin Neumann waqtigii Hitler wuxuu yiri they came for the socialist and I didn't speak because I wasn't socialist socialist you بعدين رايان أنا وما هني socialist وكعمصي they came for the trade unionists and I didn't speak because I wasn't a trade unionist they came for the Jews and I didn't speak and I wasn't a Jew finally they came for me and there was no one left to speak for me because that كانوا ما رايان marka waxa weeye ninkii leedkii loo xiriyo soo qoysaday waxaan qabaa aniga dagaalkan dawladda Puntland kaliya maaha shacbiga Puntland baa kula jira waa dagaal Soomaali oo dhan nimankaas meeshay tagaan ba dhib ku haya haday Baydhabo joogaan haday Hiiraan joogaan haday Kismaayo joogaan haday Hargeysa joogaan haday meel alla meesha joogaan haday Gaarisa joogaan haday joogaan Jigjiga haday Jabuuti joogaan waa cad Soomaaliyeed waxaan waxa ka shaqada ka iska qoomiyadda Soomaaliland waxa muhiim ah in meel lagu soo jeesto waxa muhiim ah in aan isku fiirsan waxa muhiim ah in la isku taageero wasalaam calaykum ay ku qoran tahay falanqayn ku saabsan wacyiga ka jira Puntland waxaanu halkan ugu baaqaynaa dadweynaha Soomaaliyeed ee degan Boston iyo agagaarkeeda shirweyne lagu falanqeynayo oo lagu qaabadhigayo arrimaha ka taagan Puntland maanta marka maadaama la yiri ummadda Soomaaliyeed ee degan Boston iyo agagaarkeeda ayaa la casuumay horta sidaasaan halkan ku yimi oo la jooga we have to make things very clear ما نفهمه قرن يا سؤال شوكتي مركا أرجع إنه حسوا أبابولي نان عادة ديوان وانا قاعد نيكا وأباب كل مجال بوسط مركا نقطه ليبان بردعت سو أباب ودي هواها تلفوني تكست كأبويا قالنا وأنا هلقا وكم مقطع مركا هدي أنا وبا أنا مستقبل كنا أنا كنا نعوز يا
waana sidii loo sheegay waxay igu muuqataa marka falanqayntii badankeeda inuu intaan arrinkan la dagaalanka argagixisada saasaa hadda igu dhacday marka arkay dadkii oo wada hadlay oo dee magaras waa sugay bal markaas iskagama dhacaysid moogti waxyaabo badan oo kale filayay laakiin waxay u eg tahay inay ku kooban tahay la dagaalanka argagixisada waa u hambalyeynaya reer Puntland aad baan ugu faraxsanahay sida ula dagaalamayaan oo ay hawsha u galeen laakiin waxa fiican sida calfish sheegay inaan la isku eegin bahasha la dagaalanka argagixisada inta isku maqan tihiin la iswada eegayo waa la idinka dhex faa'iideysanaya marka kii wallahi berigaan waan taageeri jiray wallahi waa kan liiban markhaatibi markuu la dagaalamayay argagixisada aad baan u taageeri jiray kuwani marka dani markiyo dowladan Puntland la dagaalaysa aad baan u taageersanay marka waxa fiican wax kastoo lagu kala duwan yahay bal cadawga horta naga wada dhaxeeya إلى ليس ما يسكت سوتاعنا، أو نقول مع وسيله وبينسا قال إنه ما نسي شريط بيتيا مصعد الزهاز، يا مركا ده حنبلي ولا محكي له ورن مايو دجال كان كوضا سدي لو معرفت وحي تاجره بالعكس طبعاته كل يعني شخصيان عبد الرحمن ديار بانو هاي وحوجا إني الرأيين كدواني هاي فكر كحد ما صنداري ورمض اللي هو فرحسن الدجال أنا كوا سود وين لما تجي السود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد كل مسوي استاجر ورت على الحمام ما تسيء يعني حوالي الصاحب كيا هذا ربنا إنه كتور ماشي ما قلت مركا واحد ماشي ضد سويا إنه واحد ويسمعون ويا إنه ما هربنت لانكلي والصومالي ونا دجال كسواب من الشغل إنه ما بيلاون حاسس شغل إنه ما بيلاون مركا أنت رجال عبدون واحد ستين وسود دولي يوحيابا وكتير الصوم مركا وكتير يدك كاس الله دلواقي عمي عبدون شو أقول لك كورا لكن حاسس شغل مدح بينه هي أنا سياسة واحد سجسوا جندي واحد وكنت وأنت مركا رجعني نقطي أريمه تبدأ أنا قلنا بتلا ومن حين الصومالي سياسة مش كويس إنه واقوني لكن مدان بنت لنا وسوى مش مارتي لكن أسأل من حين إنه هلو قال تا كلام وركسن مرتوا فرح سنة يا عاوة كان هنا سكون من أريم تام بنتلان وأريم بنتي خطيب أدو وركسن ويا ساشة كذا أدو مغليسين وهو ده كانوا ربع بعسين هو سياسة حمر وده كتير سويا أما هالنقطة فضرة أما يستغل من هالنقطة وحلقة شقيني for the last 40 years waxaa Soomaalida isku hayo wax qaranimada ah nationality isinka Soomaalinimada ayaa laga shaqeynay sidii loo baabi'iyo wixii isku keenayay ka soo ahaa wana lagu guuleystay waxaa laga tagay Soomaalinimadii waxaan qaadanay goboleysi waxaan doorbidnay inaan dhan wadanku kala gooyo waxaan doorbidnay qof ajaanib inaan dhan walaalkeen kii Soomaaliga aan dhan cadaween waa dhaqan jira weeyaan أنت هذا كسرت بنتران قالت مركو كان لا وحيران خير يلا قدين هذا يدين الصومالي ورنتيس لكن سيدي حكومة العامين بعض البلد بنتران مركان مغشين خير ما مسك حاول صار عيس كانت قل مدو مغشتنا خير باكو صار عيس قاطبة مركان مغشتنا خير باكو صار عيس وحنا لقينا ندعي هذا غير كساد الحين حكم لي حي خصيك مركان ماشي أقصى إلا أن بدلنا سيدا مفكرين وأنا قرأنا كنت إلى نسخ شيء كرنا وملاين ما يدي بعد ما أنت كترنا أنا كبحين أنت ما أنت تاجن بنترا وطن كوا حمد حوالك دني هدول نقضنين وأديجي تدك يدلك مع بنترا ما أنت شايفته وقول لي هاي الشرعية وضعك كتيرة إنه كذا هاي بنترا وحين نقول كرتا good moral Soomaalida inteeda kale ee ku dayan karto bayna qota arintan hadda ka shaqeynayno la dagaalamay argagixisada oo raga meesha markii laga saaro sheekada ku soo noqonaysa sideedii isaga magaalada iskale madaxweyne ka wuxuu sameeyay oo wadanka u baabina weeyaan isla xisaabta la'aanta ka wadanka ka jira ayaa gaarsiiyay go'aan wuxuu yiri hala tashto dowladda Soomaaliya where is dowladda Soomaaliya do you think they do dowladda Soomaaliya we don't have it ما قبل دولة الجيران
ninka maanta madaxweynaha ka ah Soomaaliya he's not acting and behaving in madaxweyne Soomaaliyeed yahay. He cannot be a good example. wuxuu noqon karaa symbol of Somali macnaha unitygeedi. Good example baa idin siinaya markay sheekada ay isku bedeshay in ay ku dhawaaqday Somaliland inay tiri waxaan ku bedelaynaa aqoonsi xeerta Soomaaliyeed ee Ethiopia inay na aqoonsato meel cidla ayuu ka istaagay wuxuu arrinta ma dhacayso Soomaali oo dhan baa u istaagtay maalinta arrinta hadduu ku dhaqaaqi lahaa wuxuu noqon lahaa qaranka Soomaaliyeed awoodda maanta ay meesha marayso weji kale ka yeelan marka waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waxa Soomaaliya ka socda waa business argagixisadan billions of dollars ayaa ku baxa every year inaan fahnaa wanaagsan and there's investors baa jira financing these things waddanka Soomaaliya waa lagu soo duulay waxaana loo dan leeyahay in dadkeeda iyo dalkeeda la baabi'iyo markaana lala wareego hantideedana la qaato umalaynaya caawa halkaan intaan isku nimaano aan $100 $200 aan bixino will change anything else fikradaha raggan walaalahayda sheegeen baan la qabaa inaan bilaabno dialogue dadkeena dibadda jooga magaalada Boston inaan bilaabno inaan challenge gareyn karno inaan wada hadli karno inaan runta isku sheegi karno waxay qaldan ansixi karno waxay wanaagsan aan u istaagi karno aniga kolba waxyaabahan uga cararay siyaasadda waxa weeyaan I don't want to be part of Somali siyaasadda waxaan waqtigayga geliyay all the time development waxaan jeclahay development-gaas aan ku ekaado laakiin diyaar baan u ahay inaan ka qayb qaato sidii dadka isugu keeni lahaa waxaana loo samayn lahaa arrintan hadda caawa aan u joogno waa arrin Soomaaliyeed waa run puntland keliya maa meesha dhibaatada ka socoto sida Alfaysan u sheegay beelo badan bay ka socotay laakiin waa laga aamusanaa bal midaan caawa noo noqoto midii nasiin lahayd baraarujin isku soo celin wada hadal iyo dialogue inaan wada samayno kolba waxaan jeclaan lahaa inay wax ka bedesho hadduu la yidhaahdo waa la mahadsantihi فرحسنا يومتين أنت صومال أحمد وأنا كذا الحمال قبل يهلي بالخفر بحوله ولا العيال إسكندرة أيوه تعجبنا الدجال كنت كتلان ما واحد كتلان كليه خصيصة وانترناشنال كريمنال وقصد كل متاكي واحد بدل الدجنا وأنا حد خلافني وراها بحلو ليه بحكسر من الجنوبيو أين تخطين حاسب بيقول هايين ولا تتجري هايين أنا كور خلين تاسم حكينا سو حملنا يضيعه إيه وحيالها صومالي بالطبع ما هو حنتو إيش هاي محليست بدن بس كاس وحنا هاي تقسنا هاي تصبحي كتب الجدايين حتى لو محل الله بس مسكين كسكدايا هذو قوة خمسة ضباط شبيلية وصوماليا ورشلنا ولا رشلنا كخاطة أسرع ربي المقاطع كي صومالي مريحة أنت صرنا نوع ممكن لأن ما قلب فعل وشأنها تذكرنا صوت دوينه لكن تذكر أنا أقول توريه لازم أن ننتهي لكن محل مجرد إيه إن الله الصومالي إن الحب بدلنا هاي مركا وحنا فرح سنة هاي إن بحيل لك هذا وقت صلاة وقت إذا بدو كذا إن اللغة وقت هذا لا لدى هذا منها مركا تاني وحيسو كيني سأقوم لنا يا صومالي أن كان جيدة إن دفتر قرطه إن وقعته إلى هاي وحكم من ذي إن الإشتاق ولما مركا تمرك وحواي وجعلنا إن نعاون لكن واحد لقى ودته الكوارق مرك يانا نسكو في سنة يانا نخلق الله يسوشيلي بحيل لقى منكر على قطو ما أرانا قال هبل يتعسكر لأنه وحن معها وح وضعهن إن أنا بسقيبنا متكلم مرك أنا رأنا قال هبل يتعسكر تبتوا وين لوجل هاي دكتورة و30% تضباطن كي كله وعروت هالكا قرطي هدانا أيها وشيء إلى العاويان صوماليا ولياشن بريو يسكب حياة كوانا بالقوة يانا وحين نقولنا يانا وحانا ترسن dadkaas yaacay kun ay ka baxgelayaan marka saas daraaddeed dadka qof walbaba oo Soomaali ah
ama ha jiro qaangaarkaan hadlayaa in loo sheego in waddankaaga lagu soo duulay laba midaan markaas uga dan leenahay mid waa inaan u sheegno inuu Soomaali yahay uusan ahayn African American mid labaadna inuu ogaado inuu dadka dambeeyo carruurteena u baahan inaan baxno sidaas nimankaan waa weyn oo waddankii ka yimid way yaqaaneen qaska badan ayagaa wada wiilka isku qoray ma kala yaqaano dad marka sidaas daraadeed carruurteena aan ku barbaarin laba shay in ay bartaan inay ahayn African American iyo inay waddankooda wax taraan saas daraadeed qof kastoo qaangaar ah waxaan ka rabnaa ilaa $5 Allah ka dhigo banaadku waxay yiraahdaan bad aruurtay masaaray noqotaa marka nimankiina waa weyn waxaan ka jecelnahay carruurta iyaga halkaa ku qosbay inay wax taraan dadkii asalaamu calaykum carruurta aan u sheegna carruurtu iyagaaba inaga horeeyo bed horaa waxa weeye wax laga buuxshay aniga ciyaalkaygaa waxay aadeen Minneapolis sheekaan idinka sheekaynaya hadyar waxay u keeneen 3 calan bay noo keeneen moogta calan waxay yidhahdeen hooyaa iskale oo waa kii galmudug calanna waxay yidhahdeen aabbaa iskale oo waa kii khaatumo waxay yidhahdeen calanna amagaalo oo waa kii khaatumo calanna aabbaalo oo waa calankaa buluuga waxaan ku idhaha kaasaynu wadeenahay waxa kale oo dhambeyn baa laydiin sheegay calanka keliya Soomaalidu waa kaan marka carruurtii hadda waxa weeye bahal bay taleefon baa saa loo haystaa oo dad baa ugu jiro oo waxba laga dhaamiyey marka waxa weeye hal baan ku raacsanaado dowladdii Maxamed Siyaad Barre dadkii ka soo shaqeeyay ama soo gaadhay inta ay nool yihiin Soomaali heshiin mayso sababtoo ah dadka waxaa u liitaa la arki jiray doon waxay leeyihiin dowladdii saa ma ahaan jirin anagu saasaanu ahaan jirnay gacanku saasuu ahaan jiray waxaasaanu qaban jirnay marka anagu waxaan aabbahay baa geel ahaan jiray anaa dabeer labaa dhaafta aynu wax qabanno marka waxa way raalle ahaada haddana waxaan u yeedhayaa waxaan saara warfaa telefoonka u geeyay gabadhaan abtiga wa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمانتي وايد السلام المدن يا المرويين أنا ونكسن آدي أدبر هذه الأسئلة شرفت له هذا بس وقيم كشيء وقتي قارئة أنا دوسو مكان إسلام مرهان تاسم ضد كسوة بقولي وهو شخص شقيق وحلايه الآدي أدبر من ستي أنت اسمك كان كم بحوه هذا الكي كردعيسي يمرتديسي معاك سبوال قاتي لكن عموس معي وحبا كده بوريا بدلان وما الرئيس ماتا لدقالنا أركك حسو لو تشيرو هلا الصور ري القاتبات كتهين نور بري يبضبع لغا الصور ري اسكعاب دي الحمد لله رب العالمين ما انت سه وابورو أن لقلي كريم آدي آدو آدك الأمن المرأة عن لهين طريقين في عنا ولا قصة وكلام لهين مال كستبع يتم الدفر اللي يمين أول الدقي وقرية لقويا شيء وعهورة لقو دالي وحاسس لقويا شيء لقو ترمي ومينوين مال وبلعسي مركب هو الرئيسة وحن همبليه بقادين وتريا إذا مدى بدلان أو بريري إن أنت صعدت جباحان عدوين إيجابيان آدي أنت اسكدب وحنو مهنقيا شعب كريم بدلان وعدد موادلين قفكم مركم موادل دبي هاي وحوية دنتيسة أيو قرصدا دفاعي سنوات كيستا وانا إسراعة ووح إسكيل عليها تشويش يقولات قيسا كبتر قيس عاد برغم هالنقيا وحنا لا يدقال كينا إيو إسكو حرناشدينا إيو موادل مدينة هالكينا اسكسيولا انت اسمر كان كبحو عدو كمان تبدلان كدقالميا وحيلتها هدو متكردنتو Soomaaliya oo dhan bay u tahay faa'iido sababta waxa dhici karta kaasu haduu saldhiman ku dhalayna inuu meel kala tago oo uu ka dagaalamo marka dambe ay ugu wada jirta in la baabi'iyo in la cirib tiro inaynu u wada kacno inaynu iska garabsano waa wax kulligeed inoo wanaagsan Soomaaliya oo dhan meel kasta way joogaan meel kasta dhibaato ku hayaan maalin walba dad bay dilaan maalin walba wax bay dhacaan xorriyad ma haysano aan ku ganacsano xorriyad ma haysano aan ku safarno marka waxaan rajaynayaa inaynu hadda fahamnay kulaylkiina soo gaaray dhibkiina dareemay oo aynu aragnay inay waxaanu tahay waxaynu u midoowno kulligeen aase Soomaali ahaan aan uga hortagno marka waxaan rajaynayaa hadal wax ma taro meel oo u baahan hadal wax kama taro maanta waxay u baahan tahay
buuraha goolis waxay u baahan yihiin gacan bay u baahan yihiin in af iyo adinba looga hortagay u baahan yihiin in lagu taageeray u baahan yihiin in wax la siiyay u baahan yihiin dhaawaca in la quudiyay u baahan yihiin askariga kaakiga marna qoraxda la taagan marna dhaxanta la taagan wuxuu cuno iyo wuxuu hubado ayuu u baahan yahay wuxuu cabbu u baahan yahay marka walaalayaal ma aha wax la iska indhatiro waddankeena aan u istaagno soomaalinimada aan u istaagno mudlaannimada aan u istaagno aan istaageerno ilaahayga subxaana qaadirkaana hayna garab galo ilaahayna haynaga qabto cadowga inagu soo duulay meel kasteena inaga soo duulay ilaaha subxaana qaadirka baa nalaga filan ilaahayna haynaga celiyo ilaahayna hayna kuweeyo soomaaliya guul puntland guul wasalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبرونا كريم ما ذروانا. أصلا مقرئي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سنتين إركستوا أبرونا كريم يرد بقسيارة. حاول الله جدكم قدير هذين. لو صدق خطبنا قصور كروي هذا الكيلة. دجال كريوتا يعرضه فجنا وعرض الصومالي دوي. وعرض الصومالي نقول إن مذاكرته. doonayno inaynu meel ugu wada istaagno nimanka nabaddiidka ah al-shayaadiin afduubka al-shabaab iyo daacish lagu magacaabo adduunkiina dhibta ku wada khaasatan soomaalina dhibta ku wada waa kansarka soomaaliya ku jira maanta wax kastoo kasta waanu ku heshiin karnaa laakiin nimanka heshiis lama qaadan karno waa in root out waddanka laga sameeyaa kow labo waxaa weeye maxaynu u baahannahay annagu qurbaynu joognaa dabad baynu joognaa maxaynu tari karnaa ninka buurta nimankan kula dagaalamaya isagu naftiisu huray caruurtiisii iyo reerkii marwadu jeclaa ka soo tegay dhiiggiisi iyo naftiisu huray inna waxaynu bixin karnaa dhaqaalaynu bixin karnaa dhaqaalaha ay u baahan waa saddex shay baa u baahan inaynu quudino kow waa caloosha wiilka dagaalamaya ee furunta iyo dhaxanta ku jira waa caloosha gaariga uu wato ama qoriga tiknikada uu wato gaaskiisa iyo shidaalkiisa iyo caloosh saddexaad oo ah qoriga uu ku dagaalamayo wuxuu ku guran lahaa saddexdaas ayaa looga baahan yahay hadal badan intii la oran kari waa la yidhi waxaan u baahannahay oo nafteeda idinka aynugula dardaarmaya inaynu si mug leh uga qayb qaadano arrintaa qadiyada soomaaliyeed ee maanta buuraha makala calmiskood iyo calmadow ka jirta buro badan baa hadhay buurta koowaad baa dabagalay niman meeshan waa meelo dhufaysa oo haddaad ama taariikhda akrisa waad baadhi godad hoose boqola ah waa laga saari kari toroboorana ka daranayta marka in xoog iyo maskax xooladba looga qayb qaato ayaan boorinayaa insha allahu tacaala anoo adag soo koobaya mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan igu boorinayaa in arrintaas si mug leh xagga dhaqaalaha looga qayb qaato billahi tawfiiq. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت فوق أنا وأنا هبيت كيس نميه أنا وباسك أباي ويتاجي هاي وأضي أنا وصو كنا هاي وصو بطلع هي مارتي إذا وضي ما شاء الله مارتي والماسنتين ومثلا قلي إن الماشي وحكش يا جماعة الأضياشي بفردية waxaan u malaynayaa liibaan bardacad horta inaan siiyo credit weyn maxaa yeelay arrintani afar beri bay ahayd marka waxaan oo kale anagu qabanayna afar week iyo bil iyo waxaas ugu qaadataa marka odayga magaalada tahay thank you walaalayaal hadal oo dhan waxa weeye habaar oo dhan soo maahan dhimo habaar oo dhan qof habaartaba haddaa aragtay jini madow kula tag balaayo kula tagto waxaas kabacdi dhimo un sooma soo maamaanayso hadalkan muhiimadiisa waxa weeye waddankaas waxa ka socda qof walba indhihiisa u arkaa maal xoog baa loo baahan yahay dhaqaala loo baahan yahay hadal waxba ma tarayo 3 sano waxaan la shaqeynayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo 3 sano dhibka waddanka haysta xanuunkiisa dadka meesha jooga aqoon iyo aragti kaamidooda yani puntland jubbaland galmudug wax lama arko sida cabdulqaadir uu sheegayay cabdulqaadir yaasiin it was just perfectly waa xanuun badan tahay soomaaliya haddii laga hadlo maanta meeshan maxaa yeelay first hand baan anugu arkay waan daawaday anigoo shaqo badan oo carcararayo waxaa meeshii baan tegay
meeshiina shaqadeeda maalinkii 3 saac 4 saac la shaqeeyo waa shaqo ka badan oo qabatay walaalayaal halka kale aan rabo inaan sheego oo wax kale la iloobayo buuraha la duqeynayo ay nimanka ku jiraan nimanka kaliya lama laynayo dad waxaan leeyahay xoolo raacata dad masaakiina dad dibaalki buurahaas waxa ku wareegsan dad masaakiina oo geel raacdo oo lo raacdo oo maartay baalkiya qoriga markuu meeshaas ku dhaco buuraha hubkaas chemical buu leeyahay chemicalkaas meeshaas weligeed danba waxba kama soo baxayso kama soo baxaya hadda dadka iska socdo hadday degaan caruurta ku dhalaan xataa cancer iyo xanuuno badan iyo waxyaalo badan bay keeni karaan impact waxyaalo kala iyo chemical kala isticmaalayo waxaan u baahanahay annaga Soomaalida inaan isku imaano I think Abdulqaadir hadda ka hor wuxuu furay dialogue oo mataqaan openly in ataalafteeda la xoojiyo oo magaranaysa dialogue smida ka noqoto oo argixisada Donald Trump waxyaalaha aanu ku taageersanay waxa kamid ah waxyaalaha ku taageersanay ninka munaafiq ma wuxuu sheego uu sameeyaa marka walaalayaal waxaan leeyahay diyaaraha lagu garacaya laftigooda anagu laftigeena dan uguma jirto dadka askarta ah inaan siino ishaq cuntadoodii iyo ciyaalkoodii iyo adu agoon inay noqdaan ayna ka fakeyn inaan siino xoog inaan hub siino dhalinyaradeena ku filan reer Puntland way isku filan yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay resources inuu ninkaasi hodhowtooda inay xabad ka goy karin hodhowtooda ciyaalkiisa markuu agoon noqdaan ayna meel cilaa looga tegi karin marka intaasaan uga baxayaa waxaa loo baahan yahay inaan anagu noqono inaan maanta kaliya ana ka fakerin oo buurtu waa la qaxiyay dad nin baa ku dhintay iskari ku dhintay caruurtiisii yaa u dhiman nin walba 3 naamood buu qabaa 17 ciyaal buu ka tagaya yaa agoonta u maqan marka waa maasantiin thank you السلام عليكم هذه البلد السامية رماتين مرتشافات ماتين هذا الوارم هذا البر المهري هذا البنا بحيو انت الشيء وانت خيارتي كان كهذا الشيء وشكتي بتلاقي نمد هي بهربتها هوي النبضة انت سبب قوتها ما دام الدعاء الرميو بل إلى السوق رجولا بيننا نرمي على بريس ما يستمر على بريء وحوق تراجعين وحوق وجودعي تعالي مركا قرضي ما تقب سطحي واحد يبلع من يجوا وياشل الدعية مركا أنا وقت الصومالي وأنا بعد الدعاء كل عقلي قلت لا أنا هني أنا الدعاء ما دام أنا الدعاء الصومالي وأنا الدعاء عاد كان هو عاد كنت عايزين أنا الله بحضر قلت له نودو هي بيربطها هو يجي نبضها وعاد كنت عايزين بالله يكفر ليها وعاد كنت رسالة يا وعاد إلى وذاك اسمع بقى إلى وذاك operation قرطة إذا بدو أول قرب من قبتين دولتي يقول الرئيس والصباط وعن نبهنا إنه أثبت له صومالي ولا نبهنا وأورال الصباط مورال الصباط يفيناشيال الصباط دولتي يقول الرئيس وبحسي إن منكي ديار البلاد قالوا دولتي مريكا كان نغطي ودياري هذه أي نمكي كراعين وأنا وح إلهي لقوم هذه Soomaaliya oo dhan bayna guul u tahay guusha Puntland gaadho Soomaaliya baa gaadhay sida hore uu sheegtay marka waxaan rabaa inaan idin wadaago waxa weeye nimankaan warta xilligay bilaabeen inay Soomaaliya ka aasaasmaan xilligii waxa ahayd taadka ay ahaayeen oo marka nin qolyahan wadaadada iska qaadariyo iska casho karsanaya baa nimanka taadka inta cashadiisa u yimaadeen bay ka gediyeen oo wixii oo dhan waxay leeyihiin calaamadiisa wixii oo dhan la baa وأب وحناخي عبد الله يسير يسراكيش مركي قبتين عبد الله يلا أنا بس واحد كلهن عبد الله وين قلتين مركي قلتين وهي هدا يسيد يسان نبت قريب نسان وملاش نكون يقولون ورانا بيسان هدا دي تشان يقولون ورانا بيسان أنتي لان عضي بطلع مريض واحد يتاجني إن نبت عارف السدا سيدي بالله تريدو وبيجي مركي لقى السفينية وعلبني SDF الكسفينية بالتحدي يوافر هذه السطورت وعيري أفر هذه السطورت وعيري أخواني ولبعض هنا نقول بحباريسي أنا دوحي الصورة فيا لبعض أفوفيسي نحن نحن الله الله نيجي ذي كلام نيجي معنا نحن الله الله إلى يوسف دعوك يردافع حستر إلى يوسف دعوك يردافع حستر لكن برضو وحوي إن كان إن financial عن هذا قرارات على هذا أست بوسطن وعن إنتقال صنعنا هندس
inay noqoto full support oo qof walba maanta wixii laga qabto dhulkaas uduga waa dhulkeedii wixii laga qabto inaynu inagu dhan ka wada qabanay taasaan idinkaga rabnay idinkaga fadhinaa intaasaan kusoo gabagabaynaya aada iyo aad baan u mahadsantihi